waxaa maanta guud ahaan dalka si rasmi ah loo soo saaray natiijada imtixaanka qaran ee bil ka hor ardada dugsiyada hoose dhexe u fadhiisteen. Magaalada Gaarisa waxaa calanka u haysay Ifrax Maxamed Shuuriye oo heshay 405 darajo kana soo baxday iskoolka Young Muslim Academy. Ifrax waxay ka mid tahay ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, waxayna ismaamulka Gaarisa ka soo gashay kaalinta koowaad halka heer qaranna ay ka soo gashay kaalinta toddobaad. Waxaa telefishinka Hon Cable la hadlay aabaha dhalay Ifrax oo ay farxad badan ka muuqatay. Sikia matangazo huyu msichana amepita, nimefurahi sana na leo furaha yangu imekuwa zaidi sana. So na washukuru Mola mara ya kwanza, walimu na waomba wanafunzi wenzake wale walimavu wafanye bidii vile Ifrax amefanya. Shukran. Ugu dambeyntii macalinka soo waxbaray Ifrax ayaa ugu baaqay ardayda kale ee la midka ah inay ku daydaan Ifrax dadaal badan ay muujiyaan. Ifrax is our student. She is very disciplined, determined and hardworking. She has been here for a while since nursery school, and in all the years she's been here, she was working so closely with teachers. So we want to thank her for the effort and determination she has brought us this kind of fame. Ifrax, the way she is, it's a notion that now disability is not inability. Actually, those who are in her situation, they should learn from her that the sky should be the limit, and she's determined to do well up to university level. Abdi Majid Umar, Hon Cable TV, Garissa.